wax kasta oo aad rabtid inaad ka ogaatid aktarada Hindiga ah ee Katrina Kaif iyo su'aalo badan oo ku saabsan nolosheeda oo niyadaada kaaga soo dhici jiray ayaynu halkan ku falanqeyn doonaa. bal soo dhawow si taxadar leh oo la soco sheekada qoftan. Katrina Kaif sida ay dad badan u garanayaan waa aktarad Hindi ah kuna soo caan baxday jiridda aflaamta Hindiga. waxaysan Soomaali badan ogeyn in ay sidoo kalena tahay moodalad xayeysiisa dharka. waxa ay ku dhalatay Hong Kong oo ah gobol ka mid ah Shiinaha laakiin ka madax bannaan. waa magaalo meeshaasi waana gobol sidoo kalena waxa uuna gobolkaasi hoos imaan jiray wadanka Ingiriiska laga soo bilaabo sanadii 1841 ilaa 1997. taariikhdii ay dhalanaysayna magaaladu waxay hoos imaan jirtay xukunka boqortooyada Ingiriiska, haddase ismaamul gaar ah laakiin hoos yimaada kana tirsan wadan weynaha Shiinaha. waxay ku dhalatay magaaladaas Hong Kong taariikhdu markay ahayd 16 July 1983. iminka da'deedu waa 39 sano jir. Katrina aabaheed waa Muslim ka soo jeeda gobolka ay ku muransan yihiin Pakistan iyo Hindiya. waa gobolka Kashmir, magaciisuna waa Mohammed Kaif. waxa uu ahaa ganacsade haysta dhalashada wadanka Ingiriiska. dhinaca dhalashadiisa maadaama gobol lagu muransan yahay uu ku abtirsado ma Pakistani weeyaan dhahnaa mise Hindi. inkastoo gaaladu u yaqaanaan Hindi haddana cadaalad maaha oo waana Muslim isla gobolkaasna Pakistan waa sheegataa. sidaas darteed annaguna waxaan ku doodi karnaa inuu yahay Pakistani. warsow sidaas ma ahan. hooyadeedna waa haweeney Kristan ah oo cadaan ah kana soo jeeda wadanka Ingiriiska. hooyadeed waxaa la oranayay Susan. waxay ahayd garyaqaanad ama lawyerad ama sharciyaqaanad. inta aysan u wareegin ka shaqaynta howlaha samafalka waxay ka shaqayn jirtay shaqadaas lawyernimada. waxaa la dhalatay 7 caruur ah. aabaheed iyo hooyadeedna waxa ay kala tageen iyada oo aad u yar. aabaheedna markaas waxa uu u wareegay wadanka Mareykanka. waxay tiri Katrina Kaif, aabahay wax saameyn ah kuma lahayn koritaankeygii. hooyo ayaa soo barbaarisay naguna soo tacabtay. mar ay ka hadlaysay ka maqnaanshaha nolosheeda aabaheed ayay tiri inkastoon jeclaa inuu garabkayga ahaado marar badan haddana waxaan doorbiday inaanan ka sheegan maqnaanshihiisa wax dhib lehna aanan ka soo qaadin. yacni kama cabto ayay leedahay. meeshii aan caban lahaa waxaan sheegi jiray nimcooyinka kale ee aan haysto. mar ay wareysatay majallada The Indian Express 2009 ayay ku sheegtay wareysigaas inaysan aabaheed wax xiriir ah la lahayn. nolosheedu waxay kasoo bilaabatay ismaamulka magaalada Hong Kong ee wadanka Shiinaha oo ay ku dhalatay. ma aysan aragba yaraanteedii nolol negaansho leh oo sida reer guuraaga Soomaalida ay qoyskeedu marba meel cagaha dhigayeen. Hong Kong waxay uga gudbeen Shiinaha kadibna waxay sii aadeen wadanka Japan. kuma aysan hakane Faransiiska ayay markab u raaceen. kadibna waxay ka sii aadeen Switzerland. waxay dhex miraafaan Yurubta bariba. waxay in bila ah ku yara nagaadeen wadanka Poland caasimadiisa Krakow. waxay uga sii gudbeen Belgiumka kadibna waxay isa sii taageen gobolka Hawaii ee wadankaasi Mareykanka oo ay ku noolayd muddo fiican. ugu dambeynna waxay ku soo biyo shubteen magaalada London iyo halkii ay hooyadeed ka soo jeeday. sidoo kalena qofka u maleynaya Katrina Kaif inay ku barbaartay London war xaalku sidaas ma ahan. kaliya halkaas waxay ku sugnayd muddo gaaraysa 3 sanadood oo kaliya intaysan u soo wareegin Hindiya. nolosheedii hore wadan aan ku tirino ma naqaan waayo wadamo tira dhaaf ah ayay soo martay. ma siina dhalasho caalamiya qofta. sanadkeedii 14aad waxay ku guuleysatay tartanka quruxda ee lagu qabtay gobolka Hawaii ee dalkaasi Mareykanka. yacni gobolkaas ayaa waxa u tartamayay gabdho badan ayaa waxay u tartamayeen quruxda iyadana gobolkii oo dhan koobkii quruxda u qaaday. waxayna halkaas ka heshay shaqadii ugu horeysay ee moodalnimo iyadoo shaqadaasi ahayd in ay jirkeeda qurxoon ku xayeysiiso dahabkii dheemanka shirkad ayayna shaqadaas u haysay. kadibna shaqadaas waxay uga sii gudubtay shaqo kale oo ah inay la shaqayso wakaalado xayeysiiska qaabilsan oo ka dhex shaqeeya magaalada London iyadoo si isbuuclo ah moodalada xayeysiiska uga qayb qaadan jirtay. inta shaqadaas waday ayay markii ugu horeysay soo booqatay Hindiya. fikradii ay ku timidna waxaa siiyay saaxiib ay lahayd oo wadamada Aasiyaanka in dheerta ah mid ka mid ah ka soo jeeday. sidaas ayay Hindiya ku timid markii ugu horeysay oo qorshahaba uguma jirin inay Hindiya timaado. xayeysiiskii dharka ee ka shaqeynaysay ayaa soo jiitay film soo saare la yiraahdo Kazad Gastard kaas oo ku noolaa magaalada London kaas oo ku soo daray in ay wax ka jisho film uu soo saarayay markii ugu horeysay ayayna ka soo muuqatay filmka la yiraahdo
boom filimka Soomaalidu aad bay u yaqaanaan isagoo oo filimkaas soo saare ka yahay goostaadkan soo sheegnay oo sameeyay aflaamta Hindiga ah. intii la duubayay filimkaas ayay Katrina heshay bandhigyo kale oo shaqo ah oo filimkii nasiibyo hor leh ayuu u furay. waxay kale oo wax ka bedeshay magaceeda ayada oo ka reebtay magaca aabaheed si ay dadku si fudud magaceeda ugu dhawaaqaan. waxay ahayd Katrina Maxamed Kaif, kadibna waxay u bedeshay Katrina Kaif. waxayna Hindiya ka yeelashay xayisiiska dharka iyo wixii la xiriira xaragada dumarka, waana u hirgalay mashruucaasi guul ayayna ka gaartay. markii hawada lagu sii daayay filimkii Boom sanadii 2003 ahna markii ugu horeysay ee ay caalamka Bollywood lugaha la soo gashay, ayaa filimkii noqday mid gaari waayay halkii lala doonayay oo waa fail garoobay. ciladaha ku soo baxay Katrina waxaa kamid ahaa in luqadda Hindiga ah aysan si fiican u aqoon, sidoo kalena jilninkoodu uusan fiicnayn. mar ay ka hadlaysay filimkaas ayay tiri waxaanan aqoon u lahayn dhadhanka wax jirista waqtigaas. filim soo saarayaashiina waxay bilaabeen in ay shaki galiyaan in ay filmaan kale ku soo daraan iyo in ay iska daayaan oo ciladahan soo sheegnay awgood. qofta af Hindiga dhib ku ahaa sababtoo ah san hore soo sheegnay nolosheedii kuma aysan soo qaadan Hindiya. hooyadeedna waa islaan cadaana, safar badan iyo wadamo badan bay u kala gooshtay. markay afka Hindiga intay ka taqaanay waa xoogaa ay aabaheed ka kasbatay. wixii intaas ka dambeeyay dhinaca jilninka iyo afka Hindigaba waxay ka qaadatay koorsooyin waxbarasho ah, waxayna ku guuleysatay samaysayna kadib filimka Boom 41 filim oo ay la soo jiishay aktorayaal caanka ah Bollywoodka sida Salman Khan, Shah Rukh Khan iyo Akshay Kumar, Govinda iyo kuwa kale oo badan. dhinaca abaalmarinaha waxay heshay wax ka badan ilaa 6 abaalmarinood. dhinaca nolosha jacaylka waxaa jirta aragti ay ka aaminsan tahay oo waxay tiri waxaa jirta nolol ka horeysa guurka iyo mid ka dambaysa guurka. waxay leedahay shakhsiyad jecel romansiga iyo jacaylka aadna uga heshaa. Katrina waxay xiriir jacayl sameeyeen Salman Khan, xiriirkooduna waxa uu ahaa mid sir ah ilaa laga soo gaaro sanadii 2010. go'a xiriirkaasna waxaa loo sababaynayaa inuu Salman Khan ka masayray iska agdhawaanshihii Ranbir Kapoor iyo Katrina Kaif. dhinaca kalena soo lagama yaabo sanadihii dheeraa oo xiriir bilaa natiijo ah in ay ku caajistay. Salman oo ay ka doldolsatay warqad yar ayay u dirtay ayna ugu sheegayso in xiriirkii jacayl xaggeeda ka soo idlaaday. Katrina waxay xiriir jacayl oo dheer la yeelatay ninkii uu Salman uga masayray waa Ranbir Kapoor, hase ahaatee way kala dhamaadeen kadib dhexdooda markii ay ka dhacday khilaafaad iyo mashaakilo waaweyn. isna waxa uu ku dhamaaday xiriirkaasi fashil iyo naasabeel. ugu dambeynna nolosheeda waxaa soo galay aktarka Hindiga ah ee Vicky Kaushal. 2 sano ay xiriir hoose lahaayeen kadib waxa ay isku guursadeen magaalada Mumbai. haddaynu si guud nolosheeda warbixin yar oo kooban uga bixino, Katrina wadanka Hindiya waxa ugu horeysay markii ay dhigaysay filimkeedii ugu horeeyay Boom. afka Hindiga xitaa si fiican umaysan aqoon waqtigaas. waxay agabka jawharta u xayisiin jirtay shirkad laga leeyahay Mareykanka ee gobolka Hawaii oo ay nolosheeda qayb kamid ah ku soo qaadatay. marna wakaalado xayisiis ay la dhan u sameyn jirtay xayisiinta dharka, halkaas oo ay isna waqti fiican ku soo qaadatay. fursadii ugu horeysay ay filmaanta ku jishana ay uga soo baxday. hooyadu waa islaan cadaana, aabaheedu waa aabe muslim ah oo wadanka lagu muransan yahay Kashmir ka soo jeeda. qoftaasi Hindiyaba waxa ugu horeysay markay aflaamta dhigitaankooda ay ku bilowday. wax lala yaabo weeyaan. waxa dhici karta in Soomaali badan is leeyihiin in qoftu waa qof Hindiya ku soo barbaartay oo inta ku soo leekaatay. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. haddii aadan ku xirnayn kanalka fadlan subscribe inoo taabo, like dhiirigelintana inoo saar. aad iyo aad baad u mahadsantahay.